inkastoo dhammaan khudraddu ay muhiim u tahay caafimaadka haddana noocyo ka mid ah ayaa waxtar gaar ah u sii leh. basasha waxaa ku jira faytamiino kala duwan, macdano iyo isku dhafyo kale oo awood leh kuwaas oo sare u qaada ama u horumariya caafimaadka habab kala duwan. waxaynu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah faa'iidada basasha u leedahay caafimaadka. dheefshiidka faa'iidooyinka wax ku oolka ah ee basasha ay u leedahay dheefshiidka waxaa ka qayb qaadata maadada inulin. waxay caawisaa bakteeriyada neefmareenka inay si caafimaad qabta looga faa'iideysto taasoo ku nool mindhicirada sida tan samaysa fitamiin K oo ka hortaga dhiigbaxa. oligofructose waa maado kale oo ku jirta basasha, waxay hoos u dhigtaa calool istaagga ama calool fadhiga. waxa kale oo ay daweysaa calool xanuunka iyo goryaanada caloosha ku dhasha. difaaca jirka waxaa ku jirta basasha selenium, waxay dardargelisaa shaqada habdhiska difaaca ee jirka. dalal badan oo ruushka ka mid yahay waxa dawo ahaan lagu isticmaalaa hargabka ama duriga noocyadiisa kala duwan. basasha oo la hoos geliyo luuta waxay sare u qaadaa difaaca sida ila caafimaad laga soo xigtay, sida inay infekshanka jirka ka saaraan iyo inay heerka biyaha sare u qaado. waxay xoojisaa difaaca jirka. maqaarka basasha waxaa ku jira faytamiin A, faytamiin C iyo faytamiin E. dhammaantood waxay ka qayb qaataan kubcinta caafimaadka maqaarka. waxay ka hortagaan inuu maqaarku dhalan rogmo ama inaad u muuqato qof daahan aad u weyn. waxa kale ay ka hortagaan laalaabka maqaarka. dhanka kale waxa ay ka difaacaan maqaarka saameynta bakteeriyada ay ku yeelato. faytamiin C waa muhiim inuu maqaarku noqdo mid ifaya sida lagu xusay daraasado la qaaday. timaha ujeedka koobaad ee juuska ama muudka basasha laga tuujiyo waa mid u wanaagsan koritaanka timaha. waxaa ku jirta sulfur, waxa kale oo laga helaa amino acids iyo keratin, borotiin muhiim u ah bixitaanka timaha. maadada sulfur waxay xoojisaa qarada timaha, waxay kaga shaqaysaa borotiinka collagen kan oo inaga caawiya helidda unugyo cusub oo maqaarka ah iyo koritaanka timaha. wuxuu dawo u yahay timaha qarada yar iyo kuwa daata. marinta madaxa ee basashu waxay sare u qaadaa qulqulka dhiigga oo gacan ka geysta caawinta jirida timaha iyo bixintoodaba. daraasado ayaa sheegaya isticmaalka basashu uu ka caawin karo dib u soo celinta timaha daata. toxobta cirada iyo midabka timaha basasha waxaa lagu daweeyaa toxobta. waxay dishaa bakteeriyada taasoo sare u qaada samaysanka toxobta madaxa. marka laga yimaado toxobta sidoo kale basasha waxay dawo u tahay infekshanka madaxa ku dhaca. cirada ayaa sidoo kale ay dawo ka tahay, balse ma jirto daraasado qeexaya waxtarka basasha ee dib u celinta timaha cirroway. dhanka kalena basashu waxay joogtaysaa midabka rasmiga ah ee timaha. wadnaha basasha waxaa ku jira antioxidants iyo isku dhisyo la dagaalama cholesterolka iyo infekshanada kale. waxa kale ay ka hortagtaa xinjirta dhiigga iyo inay hoos u dhigto dhiig karka. maadada quercetin oo laga helo basasha ayaa mid saameyn xooggan leh taasoo la dagaalanta caabuqyada kala duwan. baaritaano ayaana tusaya cunista basashu ay hoos u dhigto xanuunada wadnaha. kansarka cunida khudradda allium oo ay basashu ka mid tahay waxay hoos u dhigtaa khatarta kansarka sida ka caloosha iyo mindhicirada. cilmibaarisyo ayaa lagu arkay dad cunay xaddi badan oo basala 22% ay yaraatay in laga helo kansarka caloosha marka loo eego kuwa cunay xaddiga yar. cunida basasha waxay ka hortag u tahay kansarka macaanka ama sonkorta. cunista basasha waxay ka caawin doontaa xadidida heerka sonkorta ee dhiigga. tani waxay muhiim u tahay dadka macaanka leh iyo kuwa looga baqayaba. si gaar ah isku dhafyada laga helo basasha sida quercetin iyo sulfur ayaa leh saameyn xooggan oo ay kaga hortagi karaan macaanka ama sonkorta. iyadoo la eegayo faa'iidooyinka badan iyo isku dhafyada laga helo cunista basasha waxay ka caawin doontaa yareynta sonkorta dhiigga. habdhiska hawo mareenka cilmibaaris ay ku samaysay dowladda Mareykanku bukaanno qaba xiiqda ama neefqabatinka iyo xanuuno kale oo ku dhaca hawo mareenka sida xasaasiyadda sanka ayaa lagu xaqiijiyay in basashu ay leedahay faa'iido caafimaad marka laga hadlayo habdhiska hawo mareenka. basashu waxay ka caawisaa habdhiska hawo mareenka hoos u dhigida cudurrada. waxaa talo caafimaad lagu soo jeedinayaa haddii aad leedahay xanuunada ku dhaca hawo mareenka, isticmaal basasha si ay hoos ugu dhigto fursadaha samaysanka cudurrada ku dhaca habdhiska hawo mareenka. jinsiga basashu waa mid ka mid ah dawdhireedka taasoo meelo badan lagu daweeyo howlgabka xagga jinsiga. dhanka kalena waxay leedahay faa'iido ah inay sare u qaado fursadaha dhalmada gaar ahaan taranka xagga ragga.